waa xafladii dhalashada gabadh la yidhaahdo Alowdia. Alowdia waxay heshaa hadiyad yaab leh. Waa boombale u muuqda mid cabsi badan. Alowdia markay aragto boombalaha fool xun, isla markiiba waxay ku tuurtaa armaajada. Habeenkii markuu dhacay, boombalihii dhab ahaantii wuxuu ka soo gurguurtaa armaajada. Wuxuu miiska ka qaataa mindi. Ilaa ayaa dhacaya, onkodna wuu yeedhayaa. Boombalihii wuxuu dilaa waalidkii Alowdia. Markuu daba ordayo Alowdia wuxuu ogaadaa in waxa sariirta saaran ay yihiin boombale jilicsan oo keliya. Alowdia tadabta ahi waxay taagan tahay gadaashiisa. Waxay ku tidhaahdaa boombalaha waxaa dishay hooyaday iyo aabbahay. Markuu boombaluhu taas maqlo, aad buu u baqaa oo surwaalkiisa ayuu ku kaadiyaa. Isla waqtigaas, boombalihii si lama filaan ah ayuu uga soo toosaa riyadii. Wuxuu garwaaqsadaa inuu dhab ahaan surwaalka isku kaadiyey. Boombalahani waa ilmaha dhashay dhammaadkii filimka afraad ee Bride of Chucky. Waa ilmaha Chucky iyo Tiffany. Maadaama uu agoome ka ahaa dhalashada, boombaluhu weligiis ma oga waalidkiis. 6 sano ka hor, nin cod boombalayaasha ku hadla oo la yidhaahdo Sikis ayaa korsada. Sikis wuxuu u adeegsadaa inuu noqdo qalab bandhigiisa lagu sameeyo, mar walbana wuu aflagaadeeyaa. Dabadeed Chucky ayaa magaciisa u bixiyay Glenn. Boombaluhu wuxuu la socdaalaa Sikis isagoo bandhigyo sameeya. Maalin kadib markii bandhigu dhammaado, boombaluhu wuxuu Triga ku arkaa waalidkiis. Waxay noqotaa in agaasime Hollywood ah uu aad u jecel yahay sheekada Chucky iyo Tiffany. Koox filim samaynaysa ayaa duubaysa filim la yidhaahdo Chucky Goes Psycho oo ku salaysan sheekada labada boombale ee dilka ah. Jidhkii boombalaha ee Chucky iyo Tiffanyna mar kale waa la dayactiraa. Markuu boombaluhu Triga ku arko Chucky iyo Tiffany, wuxuu ugu dambayn garwaaqsadaa inay noqon karaan waalidkiis. Sidaas darteed, si geesinimo leh ayuu uga tagaa Sikis oo keligiis ayuu u baxaa Hollywood. Wuxuu doonayaa inuu helo waalidkiis, Chucky iyo Tiffany. Wax yar kadib, boombaluhu si qarsoodi ah ayuu uga galaa goobta filimka Chucky Goes Psycho. Wuxuu Chucky iyo Tiffany ka helaa qolka agabka filimka. Dabadeed wuxuu soo saaraa silsiladii uu Chucky ka tegey, taas oo ah wadnaha dambala. Wuxuu akhriyaa sixirka ku qoran. Si kadis ah, nalalkii qolka ayaa mid u qarxa. Daqiiqada xigtana Tiffany iyo Chucky dhab ahaantii nolol ayay dib ugu soo noqdaan. Markuu Chucky soo tooso, wuu yaabaa boombalaha hortiisa taagan, mana iska celin karo qosolka uu ka qoslaya foolxumada ilmahan. Boombaluhu ma xanaaqo, gacantiisa ayuu soo taagaa oo wuxuu tusaa calaamada barbarkiisa. Markuu Chucky arko calaamada, wuxuu ogaadaa inay si sax ah ula mid tahay tan isaga ku taala. Boombaluhu wuxuu u sheegaa Chucky iyo Tiffany inay yihiin waalidkiis. Markuu Chucky maqlo warka, naxdin darteed isla goobta ayuu ku suuxaa. Markay Tiffany runta ogaato, way qiirootaa oo waxay doonaysaa inay boombalaha habsiiso. Intii qoysku dib isu helayay, nin sameeya agabka filimada oo la yidhaahdo Tony ayaa qolka soo gala. Wuxuu u yimid inuu dayactiro jidhka boombalaha ee Tiffany. Tony wuxuu Tiffany rogrogayaa si uu u eego, laakiin markuu dhabarka ka furo, wuxuu gudaha ku arkaa hilib iyo xubno dhab ah. Aad buu u argagaxaa oo garan waayaa wuxuu sameeyo. Chucky iyo Tiffany ayaa fursadda ka faa'iidaysta. Waxay xadhi ku gooyaan madaxa Tony. Boombaluhu markuu taas arko, aad buu u baqaa oo mar kale surwaalkiisa ayuu ku kaadiyaa. Dabadeed Chucky iyo Tiffany waxay bilaabaan inay ku murmaan in boombaluhu yahay wiil mise gabar. Chucky wuxuu u malaynayaa in loo bixiyo Glenn, halka Tiffany ay doonayso in loogu yeedho Glenda. Isla waqtigaas, agtarad gabowday oo la yidhaahdo Jennifer ayaa soo agmartay. Waxay doonaysaa oo keliya inay hesho shukulaatadii ay ku karisay Chucky, laakiin halkii waxay ku aragtaa madaxa Tony. Markii hore Jennifer waxay u malaysaa inuu yahay qalab filim oo keliya, xataa way qaadaa oo dhunkataa. Dabadeed ayay garataa inuu yahay madax dhab ah. Jennifer way cabsataa oo si degdeg ah bay booliiska u wacdaa. Wax yar kadib, booliis iyo wariyaal ayaa ku soo urura goobta filimka. Jennifer ma doonayso waraysiyo, markaa waxay gashaa gaadhigeeda si ay meesha uga baxdo. Markay gudaha gasho, waxay bilaabaysaa inay dhunkato darawalkeeda. Laakiin waxa aanay ogeyn ayaa ah in Chucky, Tiffany iyo Glenn ay iyaguna si qarsoodi ah gaadhiga ugu galeen. Sababtoo ah Tiffany iyadoo nooleyd aad bay u jeclayd Jennifer. Waxay Chucky u sheegtaa inay doonayso inay nafteeda geliso jidhka Jennifer. Habeenkaas, Chucky iyo Tiffany waxay Glenn seexiyaan sariirta. Glenn wuxuu weydiiyaa sababta ay u jecel yihiin inay dadka dilaan, wuxuuna sheegayaa in dilku khalad yahay. Hadalkiisa kadib, Tiffany waxay go'aansataa inay joojiso dilka si ay u ilaaliso ilmaheeda. Tiffany iyo Glenn darteed, Chucky wuxuu iska dhigaa inuu isna joojinayo dilka, laakiin si qarsoodi ah ayuu farihiisa dhabarka uga istaafsadaa, taas oo muujinaysa inuusan weligiis damacsanayn inuu ballankaas fuliyo. Habeenkaas, Jennifer Tilly waxay isu diyaarinaysaa inay sasabato agaasimaha Redmond, sababtoo ah waxay doonaysaa inay ku matasho maryantii bikrada ahayd filimkiisa cusub. Laakiin ma oga in sawirkaada dabagala dadka caanka ah oo la yidhaahdo Bette Peters uu hore ugu soo dhuuntay gurigeeda. Dhanka kale, Tiffany iyo Chucky waxay bilaabaan qorshaha wareejinta nafta. Chucky wuxuu qorshaynayaa inuu qabsado jidhka Redmond, laakiin ma quusanayaan ilmahooda Glenn. Tiffany waxay go'aansataa inay Jennifer uuraysiiso, kadibna ilmaha Jennifer dhalo ayay u isticmaali doontaa inuu noqdo jidhka cusub ee Glenn. Sida aan ku aragnay filimkii afraad, Tiffany iyo Chucky si degdeg ah ayay u tarmaan. Waxay samayn karaan ilmo maalmo gudahood. Markuu qorshuhu diyaar noqdo, Chucky iyo Tiffany shaqada ayay kala qaybsadaan. Chucky wuxuu ka tagaa shahwadiisa, Tiffanyna waxay kiniino hurdo ku dartaa jambagneka si ay Jennifer iyo Redmond u suuxiso. Laakiin markii ay labadoodu isu soo dhowaadaan, Tiffany ma awoodo inay daawato, markaa si toos ah ayay labadaba u suuxisaa. Dabadeed Tiffany waxay isticmaashaa Turkey Buster si ay si macmal ah Jennifer ugu geliso shahwada. Isla markaas, Chucky wuxuu arkaa Bette Peters oo darbiga ka boodaya si uu u baxsado. Chucky wuxuu ka baqaa in sirta la ogaado, markaa isaga iyo Glenn waxay dabagalaan Bette Peters. Aabaha iyo wiilka oo
wada shaqaynaya ayaa cabsi geliya Peter Peters taas oo keenta inuu kiimikooyin rogo. Dhalo aashito ah ayaa madaxa kaga daadata waxaana uu si xun ugu dhintaa isla goobta. Subaxdii xigtay Jennifer iyo Redmond waxay kasoo toosaan suuxdintii mana xasuustaan wixii dhacay habeenkii hore. Waxay u qaataan oo keliya riyo yaab leh. Habeenkaas Jennifer waxay Redmond u sheegtaa inay uur leedahay waxayna tidhaahdaa ma aysan la joogin nin kale. Sidaas darteed aabbuu wuxuu noqon karaa Redmond oo keliya. Laakiin Redmond si adag ayuu u sheegayaa in ilmuhu aanu ahayn kiisii sababtoo ah ka hor intii uusan Hollywood iman wuxuu sameeyey qalliin uu ku xanibay taranka. waxaaba kasii daran wuxuu Jennifer u sheegayaa in haddii ay dhab ahaan uur leedahay ay iska iloobi karto doorka maryantii bikrada ahayd. Tiffany ayaa si kama ah u maqasha arrintan. Tiffany weligeed waxay ahayd qof jacayl u hamuun qaba. Markay maqasho Redmond oo sidaas u caayaya Jennifer islamarkiiba waxay doonaysaa inay disho. Laakiin Tiffany waxay hore Glenn ugu ballan qaaday inay joojinayso dilka. Sidaas darteed waxay isticmaashaa habka dadka balwada joojiya lagu xakameeyo damaca. Tiffany waxay wacdaa khad caawimo oo loogu talagalay dadka balwada leh waxayna been ku sheegtaa in balwadeedii dib u soo noqotay. Qofkii taleefanka ka jawaabay ayaa la taliya oo ku yidhaahda in wax walba ay yihiin tallaabo. Marka aad bilowdo joojinta mararka qaarkood waa caadi inaad nasato. Markay Tiffany taas maqasho waxay dareentaa sidii in loo fasaxay. Sidaas darteed way jeesataa oo waxay dishaa Redmond. Dhammaadka muuqaalkan Glenn ayaa si kadis ah u arka wixii dhacay. Tiffany waxay Glenn u sheegtaa inuu ka caawiyo inay sirtaan qarsoonaa. Subaxdii xigtay markii Jennifer soo toosto waxay ogaanaysaa in caloosheedu si lama filaan ah aad u weynaatay. Waxay u malaynaysaa inay si kadis ah u cayishay laakiin ma oga in wax ka yar 3 maalmood gudahood ay hooyo noqon doonto. Jennifer way argagaxdaa waxayna wacdaa kaaliyihii hore ee la odhan jiray John. Tiffany mar kale waxay dhegaysataa wadahadalkooda iyadoo adeegsanaysa taleefanka kale. Si ay sirta u qariso, Tiffany waxay ku dayataa codka Jennifer si ay arrimaha u khaldo. Dhanka kale, Turkey ayaa Jennifer gadaal kaga soo weerara, dabadeed sariirta ayuu ku xidhaa. Tiffany waxay dejisaa John. Waxay u sheegtaa in Jennifer fiican tahay, sababtoo ah Jennifer waxay caawa u muli doontaa. Marka ay taasi dhacdo, Glenn wuxuu samayn karaa xafladda wareejinta nafta. Turkey wuxuu rajaynayaa in Jennifer wiil dhasho, halka Tiffany ay rajaynayso inay gabar dhasho. Labadoodu si joogto ah ayay uga murmaan arrintaas. Glenn wuxuu sheegayaa inuu noqon karo wiil, laakiin sidoo kale wuxuu u malaynayaa in gabadh noqoshadu ay wanaagsan tahay. Maadaama Redmond dhintay, Turkey weli wuxuu u baahan yahay inuu helo jid cusub. Tiffany waxay ka fikirtaa darawalkii Jennifer ee Stan. Waxay og tahay in Stan weligiis jeclaa Jennifer. Sidaas darteed Tiffany waxay ku dayataa codka Jennifer waxayna wacdaa Stan. Waxay ku casuuntaa inuu yimaado guriga Jennifer. Markii Stan soo galo, Turkey iyo Tiffany ayaa qabta. Wax yar kadib Stan isaguna sariirta ayaa lagu xidhaa. Marka Jennifer umusho waxay bilaabi karaan xafladda wareejinta nafta. Habeenkii markuu dhacay, John waxay ku degdegtaa guriga Jennifer si ay u badbaadiso, laakiin ma oga inay dhab ahaantii u socoto dhimashadeeda. Waxaa kasii cabsi badan qofka dilaya John waa Glenn. Waxay noqotaa in Glenn mar walba doonaya inuu ka farxiyo aabihii sidoo kalena uu ka farxiyo hooyadii. Sidaas darteed maskaxdiisu waxay u kala jabtaa laba shakhsiyadood. Shakhsiyadda ragga ee Glenn waa naxariis badan tahay oo xishood badan. Shakhsiyadda dumarka ee Glenda waa arxan daran tahay oo dhiig doon. Kadib onkod iyo hilaac, Jennifer waxay dhashaa mataano, hal wiil iyo hal gabar. Tani waxay si fiican u xalisaa dhibaatada Glenn iyo Glenda. Glenn wuxuu geli karaa jidka wiilka. Glenda waxay geli kartaa jidka gabadha. Iyagoo isu diyaarinaya inay qabsadaan jidka carruurta, Glenn ma go'aansan karo ilmaha uu geli doono. Laakiin intii jahawareerku socday, booliska ayaa goobta yimaada. Intii sixirku socday, Turkey si lama filaan ah ayuu fikradiisa u bedelaa. Mar dambe ma doonayo inuu biniyaadan noqdo, sababtoo ah dadka way duqoobaan, way bukoodaan, wayna dhintaan. Wuxuu doorbidayaa inuu sii ahaado bombale dilaa. Laakiin Tiffany weligeed waxay ku riyoonaysay inay noqoto xidig weyn. Waxay doonaysaa inay gasho jidka Jennifer. Khilaafkooda awgiis, xidhiidhkoodii si buuxda ayuu u burburaa. Tiffany ayaa Turkey ku mudda mindi, iyadoo islamarkaana qaadata wadnaha dambala. Isla waqtigaas, boolisku waxay yimaadaan waqtigii ku habboonaa. Waxay badbaadiyaan Jennifer. Kadib, Jennifer waxaa loo qaadaa isbitaalka. Isbitaalka gudaheeda, Tiffany waxay Jennifer siisaa dawo suuxin ah. Waxay si buuxda u miyir beelisaa, dabadeed waxay isu diyaarisaa inay nafteeda ku wareejiso jidka Jennifer. Laakiin intii Tiffany iyo Jennifer ku jireen xafladda isdaafsiga nafta, Turkey isaguna wuu soo gaadhaa. Turkey si xoog ah ayuu qolka isbitaalka u soo galaa. Wuxuu faas ku dilaa jidkii boombalaha ee Tiffany. Muuqaalkan ayaa si buuxda uga xanaajiya Glenn. Glenn ugu dambayn wuu joojiyaa cararka. Wuxuu qaataa faaska. Wuxuu bilaabaa inuu weeraro aabihii Turkey. Markii hore, Turkey wuxuu u malaynayaa in Glenda ay jidka qabsatay. Laakiin Glenn wuxuu u sheegaa in markan aanay ahayn Glenda, waa Glenn laftiisa. Kadib Glenn gacmihiisa ayuu Turkey ugu jarjaraa qaybo isagoo adeegsanaya faaskiisa. Ilbidhigsi gudaheed 5 sano ayaa dhaafa. Jennifer waxay keligeed korisaa wiilka iyo gabadha mataanaha ah. Laakiin qofka dhab ahaan maamula jidka Jennifer waa Tiffany. Waxay noqotaa in ka hor intii aanu Turkey dilin jidkii boombalaha ee Tiffany, wareejinta nafteedu hore u guulaysatay. Waxay si guul leh ugu gashay jidka Jennifer. Dabadeed Tiffany waxay sidoo kale qaadaa nafaha Glenn iyo Glenda waxayna ku wareejisaa mataanaha. Wiilka Jennifer wuxuu dhaxlaa shakhsiyadda wanaagsan ee Glenn. Dhammaadka sheekada, wiilka yar ee Glenn wuxuu helaa hadiyad qarsoodi ah. Markuu sanduuqa furo, wuxuu gudaha ka helaa mid ka mid ah gacmihii Turkey ee la jaray. Ilbidhigsiga xiga, gacantii la jaray si lama filaan ah ayay nolol u yeelataa. Waxay qabataa Glenn. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in Turkey aanu dhab ahaan dhiman. Wuu soo laaban doonaa.